بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد كسو دوادا مركلي برنامج كيني كساب سنة تفسير كقرآن كريم كقارهان جزء عما إنه كل احجرني سورة عما لحمريني وحن كقادي دونا عاو إن شاء الله تعالى آيات لحي صدن أين كقادي دونا kabacdi markuu ilaahay kasoo hadlay walaalayaal jannada iyo naarta iyo qolo kaste oo kaafiriinta masiirkooga oo noqon doonta jahannama iyo dadka muuminiinta ah oo masiirkoogu noqon doono jannada markuu ilaahay kasoo hadlay subxaana wa tacaala iyo qolo kasta waxay heli doonaan ayaa ilaahay wuxuu ka hadlayaa maalinta yowmal qiyaamaha ayuu suuraddan kusoo gebagabeynaya iyo siday u howlo badan tahay ee u dhibaato badan tahay ee u culays weyn tahay ayuu ilaah ka hadlaya ilaah wuxuu yidhi rabbi samaawaati waalard allaha maamula samooyinka iyo dhulka markaa 7 samaa jira iyo 7 dhul waa ilaaha rabbiga u ah mudabbiru umuurihinna waa allaha arrimahooga dabara ee rabbiga u ah ee isaga keligii lagu caabudo ee cibaadada keligii mutaystay وما بينهما يوحي ودحي الصمد يدوك والله ربك واه الله سو أهبو إلهي سبحانه وتعالى الرحمن الله نحريست بدن نحريست سيد جود أسيا قال يا مسلم با إلهي وحده لا يملكون منه خطابا ما أنت يوم القيامة ما أود كرام بو إلهي سبحانه وتعالى ضدك إن إلهي سكله الله سجون إلهي وأقلان inay hadlaan waayo qof kasta uu cabsanaya ahwaasha yowmal qiyaamuhu way culus tahay qof kasta wuxuu ka cabsanayaa in dembigiisii lagu qaado marka dadku iskama hadlayaan ilaahayna subxaana wa tacaala hadalkuma bilaabayaan qofku ilaahay u ogolaado inuu hadlo qofkaas unbaa hadlaya laa yamlikuuna awood male buu ilaahay leeyahy makhluuqu maalintaas makhluuqii kibirka badnaa adduunka qaar sheegin jireen boqortooyada qaar sheegin jireen madaxda qaar sheegin jireen iyagu adduunka maamulaan waxaasoo idil marka la isku soo ururiyo laa yamlikuuna minhu khitaaban cid hadli kartaa buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo suurtagal ay u tahay inuu iska hadlo biduuni idni illaah isagoon ilaahay ogolaan ma jirto yowma maalintaanay hadli karaynin dadku yaquumu ruuxu malaku jibriil baa istaagi doona ilaahay horti سبحانه وتعالى يسقى خشوعسا وخضوعسا والملائكة ملائكتنا سيدو كله إلهي بهور يستاقي دونا صفا يغو صفعة والنظام صن وحفوضاء مترو وحصرياع مترو ملائكتي النظام صن وخشوعسا وخضوعسا وإلهي سبحانه وتعالى وخضوعسا أي إلهي هور يستاقي دونتا محاضو مالين بني آدم كي كله خلدان ماي adduunkii gafka soo sameeyey ee gaalnimada soo sameeyey ee dhacayo boobka iyo dulmiga soo sameeyey kuwaasina cabsi awgeed ayaa laa yamlikuuna khitaaban minhu khitaaban sida ilaahay hore soo sheegay kuwaasina way khushuucsan way khuduucsan bani aadamkoo dhan xataa alambiyaa ilaa ambiyada ilaahay baa le nafsi oo nebi kasta uu leeyahay ilaahu nafteeda badbaadi maanta cid kale wax uma qaban kareen يوم يقوم maalintaasi waa maalintay istaagi doonaan arruuxu culimada qaar waxay ku fasireen arwaaxda dadku ay istaagi doonaan ilaahay hortiisa iyagoo khushuucsan laakiin sida raajixa waxa weeye arruux waa malakul jibriil waa malaku jibriil calayhi salaam waayo qur-aanku meelo kale ku sheegay inuu malaku jibriil uu magaciisu yahay arruux walmalaa'ikatu safan malaa'igtuna iyagoo safan oo ilaahay u khushuucsan ayay hor istaagi doonaan لا يتكلمون ما هل دونان بيقول الله سبحانه وتعالى إيجا لفتود ما هل إسكما هل دونان إلا من قفك ينبا هل دونا أذن له الرحمن إله الرحمن كو أقلادين وحلو ملقو إلهي وفصحين وحلو أينبا هل كرا نبي إلهي سبحانه وتعالى وفصحين وحلو أينبا هل كرا عد إسكا هل كرتا إلهي وأقلاشي سيقون كهيسا مترو ما انتاس وقال قفك الله أقلاده إنه هلنا إذن إلهي كهلانا صوابا وإنه حق كهلو قف باطل كهلا يمترو قف كرتره كهلا يمترو قف ظلمي يمعسي الدم كهلا يمترو قف كاستحق بكهلا
وقال قفك الله أقول هذا إنه هالله إله وحده سبحانه وتعالى صوابا سيقول صوابا حق بكو هالدونه ذلك ما انت هوش بدني اليوم الحق وما انت حقه وما لين حقه وسجن بإلهي سبحانه وتعالى أو إيمان دونتا أو شك لهين أو إن سجيس فمن شاء بإلهي سبحانه وتعالى قفك ما انت دونا أدونك انتو نوري اتخذ إلى ربي إنو أسميست مآبا وضو قفك أدونك ما انت اختيار كيسا كدونا إنو إلهي سبحانه وتعالى جد توصن oo ilaahay ku raali galiyay inuu sameesto ha ka faa'iideysto ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala jaaniska intaanu iman maalintaas intaanu iman maalinta ahwaasha badan ee xaaladeedu adag tahay intaanu iman buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala adduunka intaad joogto ayaa jaanis haysataay qofkii ilaahay raba subxaanahu wa ta'ala inuu sameesto wada ilaahay uu ku raali galiyo ha sameesto oo jaaniska ka faa'iideysto faman shaa attakhadha qofkii doona inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u sameesto ilaa rabbigi tid iyo wado toosan taasina waa islaamnimada ma aaban inuu ilaahay ugu laabto oo ilaahay u toobad keeno jaaniska ka faa'iideysto haddii kale waxay iman doontaa xaalada adagna ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagaa tilmaamaya siday noqon doonto waana sidan innaa ilaahay wuxuu subxaanahu wa ta'ala andarnaakum waxaan idinka soo degnay maalintii adduunka cadaaban cadaab qariiban dhow oo iman doona horaan idinku soo sheegnay inuu cadaab iman doono dhow oo khatara yowma maalinta cadaabku iman doonaana yanduru almar'u qofka bani aadamka wuxuu arki doonaa maa qadamat yadaah wuxuu hore u soo shaqaystay waxay labadiisa gacmood soo shaqaysteen waa camalkiisa ayuu arki doonaa maalinta yowma alqiyaama oo la horkeeni doona isagoo xaadira oo la rikoord gareeyay oo la diiwaangeliyey ayaa la horkeeni doonaa oonay xabadi ka maqaneen mithqaala dharra aanay ka maqaneen faman yacmal mithqaala dharratin min khayrin yarah waman yacmal mithqaala dharratin sharin yarah ilaahay subxaana wa tacaala qofkii xumaan yar soo shaqaystay wuu arki doonaa qofkii wanaag yar soo shaqaystana wuu arki doonaa maa qadamat yadah camalkiisii oo idil oo dhammaystiran oo rikoord garaysan oo diiwaan gashan oo malaa'igtu soo xaadiriyeen ayaa la horkeeni doonaa wayaquulu lkaafiru kii kaafirka ee gaalka ah ee kibirka badnaa ee xaqi isagoo u caddaaday diiday inuu ilaahay rumeeyo subxaana wa tacaala wuxuu ku dhawaaqi doonaa maalintaas yaa laytanii hoogayge kuntu turaaban adduunkii balmaan ciid iska noqdaba oonan basharba noqon adduunkii balmu ilaahay ciid iga dhiga buu odhanaya waayo ciiddada lama xisaabinaya maalinta yowma alqiyaama laakiin bashar maadaamu ilaahay iga dhigay maanta hoog ayaa ii sugnaaday buu leeyahy camalkaygii iyo kibirkaygii iyo gaalnimadaydii iyo shirkigaygii maantaan midhihiisii goosanaya saasuu ku calacali doona waa xaalad adag oo ilaahay inoo sawiray walaalayaal xaalada adagna waxa lagaga bixi karaa sidaa ilaahay bay noo tilmaamay dalika alyowm alxaq inaynu samaysano faman shaa ittakhada ilaa rabbihi ma'aaban inaan ilaahay u toobadkeenno dunuubta iyo macaasida intaad ku jirta adduunkaad jaaniska haysataan nooshahay ilaahay uga toobadkeen subxaana wa tacaala wadda toosan oo aanad dadkana ku dulmiyeen ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisana aanad ku duufsan waa inaad samaysatood ilaahay ku raali gelinayso intaad adduunka ku nooshahay subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin